iyo weliba macluumaad dheeraada iyadoo CC camera duubtay xogo sira oo ay ku jiraan dad caan oo Soomaali ah haddaba waxaynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa macluumaadkii ay booliiska dalka Mareykanku ay ka soo saareen shiikhii lagu dilay gobolkaasi iyo waraysi uu cilmi waare uu la yeeshay saaxiibkii shiikha oo warbixintaasi goobjoog u ahaa hayeeshee daawadaynteena barnaamijka u guda galin hadda channelkan ku cusubtaana subscribe asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka booliiska Columbus Ohio ee dalka Mareykanka ayaa shaaciyay muuqaal la xiriira dilkii Sheikh Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamka masjidka Abu Hurayra ee magaaladaasi sidoo kalena ahaa xogayaha golaha imaamyada ee waqooyiga Amerika ee loo soo gaabiyay ayaana haddaba kuma ahaa Sheikh Maxamed Xasan waxa uu ahaa nin hogaamiye ah oo dabeecad fiican afgaaban oo sadaqa badan inta badan arrimaha ijtimaaciga ka shaqeeya Sheikh Maxamed runtii waxa uu ka baxay ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda Mareykanka iyo ummadda Islaamkaaba waxa uu caan ku ahaa in dacwadda dadka aan Islaamka ahayn gaarsiiyo maadaama uu afaf badan ku hadli jiray sida uu BBC-da uga waramay uguna sheegay Sheikh Abdallah Abul Fadil oo ah imaamka masjidka Al-Sunna ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana ay haayeen saaxiibo dhow Sheikh Maxamed Xasan Sheikh ayaa sidoo kale sida ay sheegeen dadka deegaanku waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka dadka baahan cunto lagu gaarsiinayay inta uu jiray xanuunka safmarka halka sidoo kale uu qayb ka ahaa aasaasidda barnaamij ciyaareed oo dhalinyaradu ka qayb qaataan oo isugu jiray kubadda cagta iyo kubadda gacanta iyo weliba ciyaaro kale oo ku soo bandhigay una qabatay dhalinyarada gobolkaasi geeridiisa ayaa ku noqotay mid naxdin leh qoyskiisa iyo jaaliyadda muslimiinta ee Columbus Ohio waxay marti gelisay Soomaalida gobolka labaad ee dalka Mareykanka ay ugu badan tahay halkaas oo ka ahaa imaamka Maxamed Xasan ayaa ahaa ganacsade caan ka ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi haddaba ganacsadahan ayaa booliisku waxay soo saareen gaarigii uu watay oo uu isagu lahaa oo ay dad kale ay wataan xilligii dilkaasi u dhacay waxaa kaloo la helay macluumaad dheeraada sida uu ku faahfaahinayo saaxiibkii shiikha oo goobjoog ahaa daawadayna muuqaaladaasi booliisku ay soo bandhigeen muuqaaladaasi oo lagu baahiyay baraha bulshada waraysigii uu bixiyay shiikha la dilay saaxiibkii iyo muuqaalkii gaarigana waa kan in la yar daawo marka hore bal waxaad warbixin naga siisaa halka uu marayo baaritaanka waxaan ognahay sidoo kale guddiga inaad ku jirto loo xil saaray arrimaha dilka sheekha yaad la kulanteen ilaa ay haddana maxaa idin qabsoomay baaritaanka dadka ka dambeeyay dilkii sheekha lagu hayay bismillah waa dhawahay walaal cilmi waare waana salaamayaa dadweynaha kugu taxan waana kaaga mahadcelin howlaha qiimkeed ummadda waxayso saad la socoto weli waxaan wadnaa baaritaankii ama dabagalkii waana naga go'an tahay runtii ka ummad ahaan khaasatan ka masaajido iyo ducaad ahaan in aan dhiigga shaakha insha Allah tacaala meeshii nala gaadhaba aan meel saarno sidii bay baaritaanadu u socdeen khamiistii hadda lasoo dhaafay waxaan kulan la yeelanay oo na dalbaday duqa magaalada oo ay weheliyaan laamaha amniga mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada ugu sarreeya waxaa kaloo kulanka goobjoog ka ahaa haweeney dhawaan loo doortay in bilayska magaalada Columbus ay maaragtay mas'uul u noqoto waxay naga dhageysteen warbixinadeennii waxaana runtii u sheegnay in aanan aad ugu qanacsanayn qaabka ay wax u wadaan oo dardargelintii aan ka rabnay aanan weli arag runtii uu ka garaabay wuxuuna noo sheegay in ajendaha ama qodobka ugu horeeya ugu weyn ee miiska duqa magaalada iyo laamaha amnigaba saaran waa siduu noo sheegay uu yahay qadiyadda Sheikh Maxamed Xasan Allah naxariista in meel la saaro wuxuu noo sheegay in resource ama miisaaniyad cusub ay u qabanayaan oo khubaro xeel dheerayaal oo horle ay u qabanayaan in nimanka la soo qabto wuxuu hadalka ku wareejiyay haweeneydii bilayska u sareysay oo meesha fadhiday inay warbixin siiso
waxaan isugu jirnaa anagu marka guddigii baarida sheekha loo xil saaray iyo mas'uuliyiintii ummadda Soomaaliyeed qaar laga soo xulay iyo qoyskii ama ehelkii hoose ee sheekha caruurtiisa iyo saasoo kale waxay noo sheegtay laba shay in ilaa hadda ay cadeeyeen mid waxay tahay sheekha inaan loo dilin arrimo ku lug leh diintiisa ama islaamnimadiisa oo waxa la islamophobia la yiraahdo dareenkan ka dhanka dadka muslimiinta taas waan cadeynay waana soo afjarnay dhaheen waxaan kaloo soo afjarnay bay yiraahdeen baaritaan dheer kadib inaan sheekha loo beegsan cunsurinimo oo xagga midabkiisa ama jinsiyadda ama qoomiyadda uu ka soo jeedo labadaas waan soo afjarnay waxay marka hadda ku zoom gareeyeen oo kaamirada ku foorariyeen waxa saddexaad iman kara intaas ay noo sheegeen waxay kaloo inoo sheegeen in rajo way ka qabaan in runtii arrintan ay ma aragtay ka salgaari doonaan ninka ma aragtay baaraha khaaska ama detective-ka isaguna runtii wuxuu noo sheegay in ma aragtay ay hawshu si fiican u socoto maanta waxaa jiray shir jaraa'id oo si wada jir ah ay u qabteen lead investigator-ka ama ninka hogaaminaya baaritaanka dilkii sheekhan ciidamada baaraya qoyskiisii iyo adinkoo culamaa u diinkii ah shirkaasi muxuu ku saabsanaa lead investigator-kana maxay ahaayeen waxyaabaha uu soo bandhigay oo uu sheegay oo allaaya hadda cadeymaha hordhaca ah oo ay hayaan wasaad sheegtay salaadii jumca ka hor yaa masaajidka ibnu taymiya waxaan ku qabanay war saxaafadeed uu ka soo qayb galay horjoogihii dambi baarayaasha iyo qolada la yiraahdo crime stopperska oo inta badan iyagu u dhaxeeya laamaha amniga ama bilayska iyo dadka waa qolada mar walba tibka ama lacagta abaalmarinta ah ee qofkii xog keena ku wareejiya maadaama dadku inta badan ay xasaasiyad ka qabaan inay toos ula xiriiraan bilayska crime stoppers baa la yiraahdaa waxa kaloo joogay lawyerkii loo qabtay sheekhay qoyska matalayay iyo daladii masaajida iyo qoyskii intaba waa joogeen shirka iyo hay'adda care mas'uuliyiintooda ka hadlay meesha shirku laba waji buu lahaa mid waxay ahayd in dadka loo sheego oo la yiraahdo lacagta hadda aanu siinayno waa $20,000 qofkii xog tilmaamaysa hawshan cid ku lug lahayd noo keena midda kale gaadhigii sheekhu iska lahaa ayaa waxay noo sheegeen in ay kaamirada ku hayaan isaga oo uu wado qof markaas gloves cadcad gacmaha ku sitay qaarka sarana hood ama maaragtay marada la isaga dado markaa midabkeedu gaduud yahay uu sheegay qofku xitaa inuu madow yahay siyaabo kalena maqalay in marka intaa qofkii xog ku soo dari kara ay cadeeyeen in ay lacagtaas ay ku wareejinayaan adigu intaas ugu muhiimsaneed iyo in maaragtay maamul ahaan Columbus ay ka go'an tahay laamaha amnigu in ay soo afjaraan waxa marka xusid mudan runtii in anigu shakhsiyan anoo kamida guddiga loo xilsaaray hawshaas afayeen oo adalada sheekhana saaxiib hoose la ahaa hawshan u fara dhuudhuuban in runtii aan dadka Soomaaliyeed ugu bishaareynayo in calaamadaha aan haynaa ay waaweyn yihiin runtiina aan ku rajaweynahay daalimiinta in la soo qabto sida ugu dhaqsaha badan insha Allah sheekh dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin maalin kasta ayaa dad la dili jiray sheekhana kama duwana dadkii la dili jiray mana laga yaabo in la helo xogta ama la soo qabto dadkii ka dambeeyay dadkaasi maxaad leedahay arintaasi wali aaminsan oo dhahayo sheekhan ma u maleynaya in la heli doono dadkii ka dambeeyay dalkiisa wallahi ilmi walaal si daacada bulshada Soomaaliyeed kolkii uu wada hadasho khaladaad waxa jira inaga Soomaali ahaan xageena ah oo loo baahan yahay inaan qaadano waxa kamid ah way jiraan wiilal fara badan oo Soomaaliyeed oo laga dilay oo aniga waliba dadkii ugu horeeyay meedkooda dul istaagay ama meeyay ama godka galiyay baan kamid ahaa waa sax laakiin laba arin baa jirta wiilashu inta badan waxa ay nooga dhinteen waxay ahayd qaarkood runtii waxay gacanta kula jireen anoo aad u ixtiraamay shucuurta waalidiintood waxyaabo markaa bulshadu ay ogeed oo maandooriya asaas oo kale qaar waxaa jira wiilal fiican ahaa laakiin la socday niman markaa rag kale ay isu dhaarsanayeen isxabadayeen ceebta kale in haysato waxay tahay laamaha amniguna hadda runtii ay ogaadeen bulshada Soomaaliyeedna loo baahan yahay inay garwaaqsato ka korto in qofka dambiilaha dhalinyarada anagu aan wadanka ka saarayno oo dhoofinayno oo dad badan hadda loo yahay qarsoonayn ay jiraan wadankii loo gudbiyay
kiisaskaas iyo middan marka shaqo isku male middan waa qof mas-uul ahaa sheekh ahaa hantiilo ahaa reer lahaa oo la afduubay waxyaabo runtii aan fahmi lahayn ay afduubeen 3 cisho la haystay kadibna meydkiisa meel lagu soo tuuray weeyaan marka arrintaas xasaasiyadda keenaysa oo runtii ka duwaysa waxyaabihii hore ila soo maray laakiin waa runtii qof walba geeridu way saameynaysaa qof walba qoys buu ka dhashay laakiin sheekhu arrintiisu way ka duwanayd ma ahayn qof maandooriye ama meel la odhan karo khalad joogay waana qof la afduubay oo 3 cisho la haystay oo idaacadaha dhan ay ka hadleen oo mudaharaadyo loo sameeyay oo culimadii ugu waaweyneed North America ahaa dalada la yiraahdo ayaana 36 masaajid maamushana hadda loo doortay inuu noqdo xog haynteeda marka Minnesota hadda ka soo noqday xitaa dadku way weydiinayeen taasa ka duwaysan leeyahay ugu dambeyntii sheekh muuqaalkan lead investigator kama ninka hogaaminaya baaritaanka dilka sheekha uu soo bandhigay oo ah gaarigiisa inuu qof kale waday qoyskiisana ay u xaqiijiyeen qofka gaarigaasi waday inuusan Allahu naxariistay sheekhi ahayn gacan intee la eg ayuu ka geysan karaa muuqaalkaasina waan hayaa dadkana waan la wadaagi doonaa gacan intee la eg ayuu ka geysan karaa ayaa isleedahay baaritaanka lagu hayo dadkii ka dambeeyay dilka sheekha wallahi waxaan isleeyahay muuqaalkaasi wuxuu ka mid yahay waxyaabo waxaan aaminsanahay inta ka waaweyn inay lead investigators ku ay hayaan oo saan la socono runtii baaritaanada socda dad fara badan oo xitaa laamaha FBI ay u timid baan garanaynaa kaamirooyinkii oo dhan bay wada qaateen intana waa iska hordhac laakiin runtii waxaan aaminsanahay marka la eego meesha sheekh meydkiisa aan ka helay iyo goobaha u dhow guryo iyo goobo ganacsi kulli kaamirooyinkooda way kala baxeen videoga waana ishay ku hayaan marka anaga runtii waxay noo sheegeen waxyaabo badan oo muujinaya in la soo afjari doono muuqaalkan hadda aan ka hadlayno iyo kuwa kale oo isleeyahay way soo socdeenna waxay qayb ka yihiin un evidence ka lahayo waxaad leedahay sheekh muuqaalkan hadda waa 14 second ma badna waxaad aad leedahay boolisku waxaan u malaynayaa in muuqaalo intan ka badan ay hayaan oo intan waa qayb yar oo ay dadka la wadaagayeen waan aaminsanahay walow aan inagu odhan laakiin waan aaminsanahay waxaan u aaminsanahay runtii gaarigu meeshuu ka baxay iyo wadadu qaaday markii uu dambeysay sheekha la arkay wax la garanayo waxaan isleeyahay kaamirooyinka laamiyada ku xiran guryaha ku xiran oo aan isleeyahay beritola ugu dambeysa waayo waxaynu ognahay kaamirooyinka 25 cisho kadib way ismasaxaan inay wada hayaan marka oo weli baaritaanku uu socdo waxaan aaminsanahay marka in muuqaalo inta ka badan ay hayaan iyo xog inta ka badan waa rajada anagu aan qabno way aad iyo aad u mahadsan tahay waxa uu ahaa Sheekh Horseed Ayni Nuux oo afayeenka dalada masaajida magaalada Columbus isla markaana kamid ah guddiga loo xil saaray baaritaanka dadkii ka dambeeyay dilka sheekhaasi waxaan ka wareysanayay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay baaritaankii dilka sheekha wixii kale ee soo kordhana haddii alla idmo waan idila wadaagi doonaa welina boolisku waxay codsanayaan nambaradan idin muuqda inay kala soo xiriiraan qof kasta oo haya xog ku aadan dilkii Allahu naxariistay Sheekh Maxamed Xasan Aadam asxaabtayda aad u mahadsantihiin intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo